دوينا نبضون علي ومحمود نبضونك وقدوميها قولها دقن كبيلها ودقان كشلامبود بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ذنبنا الله دافو. أولا ذنبنا الله دافو. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ذنبنا الله دافو. waxaan maleeyahaa waxaa dad isugu yimiday meeshaan xafladan ballaaran dadkii qabanqaabiyey iyo dadkii ka soo qayb galaba muraadkooda Allah sahlo aadaan ugu mahadcelihaynaa boqorkana wadaaya laga hadal siiyay hadal la sheega xiisa ma laha la yiri hadal la sheega xiisa ma laha la yiri hadal la yiri xiisa ma laha la yiri horaa loo sheegay wixii axwaala oo la xiriira ku naqashadada waxba soo kordhimayso waxaan ka rabnaa waxaan u dooranay waa ka rabnaa haddii uu naga helay wuxuu naga dalbay oo naga helay annaguna wixii aan u dooranay waa ka rabnaa shalay haddii uu ahay shakhsi shacab oo mataqaanaa dadweynaha ku dhex jiro maanta waa nin mas'uula hoggaanka waxa waaye nabadda iyo ogaashada ka warqabidda gobolka Shabeellada Hoose waayo ma ahan hawiye kale ma ahan dad badan ka dhawaajiyay ummadda muslimka ah oo magaaladan ku nool iyo Shalaambood iyo deriskeeda nawaaxigeeda waayo waxa doortay waxa laga rabaa dadaal badan anunkana waa u soo hurna mataan hawshan waa u soo deynay waxba ma ahino waa mataqaan maalin la isku leeyahay waa ku mahadsan yahay hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo insha Allah taala hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo dad kulley afayana amba mataqaana la tashi oo la sameeyo waa hela laakiin waxa laga rabaa inuusan gaar isu buusin oo ummadda u sinayahay dadku waa walaal waa deris waa isku diin waa mataqaana dhaqan ma ka dhaxeeya badan waxa way hogaamiye guud hogaamiyalka hoosana ha xiriirsho hadii ilaahay yiraaho waxaan saasan ku kula balamaynaa hadii Allah idmo waan ku salaamayna assalaamu calaykum aad u mahadsan yahay gudoomiyaha dhaqanka golaha dhaqanka midnimada beelaha ee deegaanka Shalaambood haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka golaha midnimada iyo dhaqanka beelaha ee deegaanka Shalaambood Muqtartiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين توفيق الله نوافجيو إلهي با مهد اسكالي اسوق كينا كينا حفلة دان آد كأوبالاران صومالي وينو كسو غيب قشي إلهي اسوق كينا كينا إنبادن أمهد علينا الحمد لله يان لانهاي إلهي وعوري الحمد لله نمعظ مدى هذا الدبر كدوا الحمد لله يا ليري مدى هذا الدنب دبر ضرب كدوا الحمد لله إن بدن وحنو مهد علينا إلهي أنو مهد علينا أولا مدى اللباد دادك كسو شقية حفلة دان آد كأقروح بدن صومالي دمان تادني سقوك كاني أو قوقوشان ديقنا ومهد علينا مهد علين تاس كدنبو وحنو مهد علينا بقركا إيا بيلها الصوماليات أو دوب كيسا كسو ودا قيب قلي بقركو إريد داس مركو كسو قلهاي وحو هاي بقر هويو هاي هول كان مركو يمنا وحو نقدال لير بقر صوماليات بلشدة صوماليات ومهدسان تاي بقول كيف بقول ومهدسان تاي وحي الله كان نلا قادتاي وانا امهد علينا بلشدة قاسة بقر عبد حكين والله دردار مينا لبا كلمة دردارنا سينا شلي هدو كو سعودي انو ياي بقر هوية ما انت بقر صوماليات ودوبا بقصده الله لا قرب قالان لن وعوايه هوية بقر نمدي سداد كان هذا مغلايا ماينه waxay jirtay qarniyaal badan ka hor ay jirtay
boqornimadaasuna nama soo gaarin waa maqasheenan u malaynaa ujuuraan nimanka la yidhaha boqor laa jiray ujuuraanna waa hawiye boqor hawiye hadda bilaabo maayo beelaha walaalahaya oo deegaanka nala degan waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay ayaguna hadday suubsanayaan amba kan haddowna wada anfaco asaanna wada anfici doona hadday ayuna suubsanayaanna waa la qaadaynaa insha allah marka alxamdulilah ilaahaygaasa mahaddaas kale allii noo gartay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhaweynaa nabadoon cali oo maxmuud nabadoonka waa gudoomiyaha golaha dhaqanka beelaha hawiye ee deegaanka Shalaambood بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضعفه أولا ذنبنا الله ضعفه بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضعفه waxaan maleeyahay waxa dad isugu yimiday meeshaan xafladan ballaaran dadkii qaban qaabiyay iyo dadkii ka soo qayb galay muraadkooda Allah sahlo aadaan ugu mahad celiyeynaa boqorkana wadaaya laga hadal siiyay hadal la sheegay xiisa ma laha la yiri hadal la sheegay xiisa ma laha la yiri hadal la yiri xiisa ma laha la yiri horaa loo sheegay wixii axwaalo oo la xiriira ku naqashadada waxba soo kordhimayso waxaan ka rabnaa waxaan u dooranay waa ka rabnaa haddii uu naga helay wuxuu naga dalbay oo naga helay annaguna wixii aan u dooranay waa ka rabnaa shalay haddii uu ahay shakhsi shacab oo mataqaanaa dadweynaha ku dhex jiro maanta waa nin mas'uula hoggaanka waxa waaye nabadda iyo ogaashada ka warqabidda gobolka Shabeellada Hoose waayo muddo ma ahan hawiye kale ma ahan dad badan ka dhawaajiyay ummadda muslimka ah oo magaaladan ku nool iyo Shalaambood iyo deriskeeda nawaaxigeeda waayo waxa doortay waxa laga rabaa dadaal badan anunkana waa u soo hurna mataan hawshan waa u soo deynay waxba ma ahino waa mataqaan maalin la isku leeyahay waa ku mahadsan yahay hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo insha Allah taala hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo dad kulley afayana amba mataqaana la tasho la sameeyo waa hela laakiin waxa laga rabaa inuu san gaar isu buusin oo ummadda u sinayahay dadku waa walaal waa deris waa isku diin waa mataqaana dhaqan ma ka dhaxeeyo badan waxa way hogaamiye guud hogaamiyalka hoosana ha xiriirsho hadii ilaahay yiraaho waxaan saasan ku gula balamaynaa hadii Allah idmo waan ku salaamayna assalaamu alaykum aad u mahadsan yahay gudoomiyaha dhaqanka golaha dhaqanka midnimada beelaha ee deegaanka Shalaambood haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka golaha midnimada iyo dhaqanka beelaha ee deegaanka Shalaambood Muqtartiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين توفيق الله نوافجيو إلهي با مهد اسكالي اسرو كينا كينا حفلة دان آد كأبالاران صوماليوين دمو كسو غيب قشي إلهي اسرو كينا كينا إنبادن أمهد علينا الحمد لله يان لأنهاي إلهي وعور الحمد لله نمعظ مداد هور الدبر كدوا الحمد لله يا ليري مداد الدنب الدبر دلب كدوا الحمد لله إن بدن وحنو مهد علينا إلهي أنو مهد علينا أولا مدى اللباد دادك كسو شقية حفلة دان آد كأقروح بدن صومالي دمان تادني سقو كاني أو قوغو شاندقنا ومهد علينا مهد علم تاس كدنبو وحنو مهد علينا بقركا إيبالها الصوماليات أو دوب كيسا كسو ودا قيب قلي بقركو إريد داس مركو كسو قلهاي وحو هاي بقر هويو هاي
هول كان مركو يمنا وحو نقدا لير بقر سوماليات bulshada Soomaaliyeed waa mahadsantahay boqolkiiba boqol waa mahadsantahay wixii loo keenay nala qaadatay waana u mahad celiyeynaa bulshada qaasatan boqor Cabdi Xakiin waa la dardaarmaynaa laba kelmo dardaaranaan siinayna shalay haduu ku socday inuu yahay boqor hawiye maanta boqor Soomaaliyeed u dooba baqsadee Allah la garab galan leen waxa waaye hawiye boqornimadiisa dadkaana hadda maqlaaya maayne waxay jirtay qarniyaal badan ka horay jirtay boqornimadaasuna nama soo gaarin waa maqasheenan u maleynaa ujuuraan nimanka leeyahay boqor la jiray ujuuraanna waa hawiye boqor hawiye hadda bilaabo maayo beela walaalahaya oo deegaanka nala degan waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay ayaguna haday suubsanayaan amba kan hadoona wada anfaco asaana wada anfici doona haday ayuna suubsanayaan waa la qaadayna insha Allah marka alxamdulillah ilaahay gaasa ma hadaas kale ali noo gartay wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh daweyna nabadoon cali oo maxmuud nabadoonka waa gudoomiyaha golaha dhaqanka beelaha hawiye ee deegaanka Shalaambood بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضعفه أولا ذنبنا الله ضعفه بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضعفه waxaan maleeyahay waxa dad isugu yimiday meeshaan xafladan ballaaran dadkii qaban qaabiyay iyo dadkii ka soo qayb galay muraadkooda Allah sahlo aadaan ugu mahad celiyeynaa boqorkana wadaaya laga hadalsiiyay hadal sheega xiisa ma laha la yiri hadal la sheega xiisa ma laha la yiri hadal la yiri xiisa ma laha la yiri hora loo sheegay wixii axwaalo oo la xiriira ku naqashadada waxba soo kordhimayso waxaan ka rabnaa waxaan u dooranay waa ka rabnaa haddii uu naga helay wuxuu naga dalbay oo naga helay anaguna waxaan aan u dooranay waa ka rabnaa shalay haddii uu ahay shakhsi shacab oo mataqaana dadweynaha ku dhex jiro maanta waa nin mas'uula hoggaanka waxa waaye nabadda iyo ogaashada ka warqabidda gobolka Shabeellada Hoose waay muddo ma ahan hawiye kale ma ahan dad badan ka dhawaajiyay ummadda muslimka ah oo magaaladan ku nool in Shalaambood dariskeeda nawaaxigeeda waayo waxa doortay waxa laga rabaa dadaal badan anunkana waa u soo hurna mataan hawshan waa u soo deynay waxba ma ahino waa mataqaan maalin la isku leeyahay waa ku mahadsan yahay hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo insha Allah taala hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo dad kulley afayana amba mataqaana la tasho la sameeyo waa hela laakiin waxa laga rabaa inuu san gaar isu buusin oo ummadda u sinayahay dadku waa walaal waa deris waa isku diin waa mataqaana dhaqan ka dhaxeeya badan waxa way hogaamiye guud hogaamiyalka hoosana ha xiriirsho hadii ilaahay yiraaho waxaan saasan ku gula balamaynaa hadii Allah idmo waan ku salaamayna assalaamu alaykum aad u mahadsan yahay gudoomiyaha dhaqanka golaha dhaqanka midnimada beelaha ee deegaanka Shalaambood haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka golaha midnimada iyo dhaqanka beelaha ee deegaanka Shalaambood Muqtartiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين توفيق الله نوافجيو إلهي بام هذا سكالة يسوق كأنك أنا حفلة دان آد كأوبالارن
soomaali weyn oo ka soo qayb gashay ilaahay isugu kayna keenan in badan u mahad celiyayna alxamdulillah yaan leenahay ilaahay wuxuu yiri alxamdulillah nimcada mideeda hore dabarkeedu waa alxamdulillah yaa leeyri mideeda damba dalabkeeduna waa alxamdulillah in badan waxaan u mahad celiyayna ilaahay aan u mahad celiyayna awalan midda labaad dadkii ka soo shaqeeyay xafladan aadka u qurux badan soomaali dhammaanteedna isugu keenay oo gogoshaan dhigan oo u mahad celiyayna mahad celintaas ka dambo waxaan u mahad celiyaynaa boqorka iyo beelaha Soomaaliyeed oo duubkiisa ka soo wada qayb galay boqorku iridaas markii uu ka soo galayay wuxuu ahay boqor hawiye u ahay hoolkan markuu yimidna wuxuu noqday leeyahay boqor Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay wixii loo keenay nala qaadatay waana u mahad celiyaynaa bulshada qaasatan boqor Cabdi Xakiin waa la dardaarmaynaa laba kelmo dardaaranaan siinayna shalay haduu ku socday inuu yahay boqor hawiye maanta boqor Soomaaliyeed u dooba baqsadee Allah la garab galan leen waxa waaye hawiye boqornimadiisa dadkaana hadda maqlaaya maayne waxay jirtay qarniyaal badan ka horay jirtay boqornimadaasuna ma soo gaarin waa maqasheenan u maleynaa ujuuraan nimanka leeyahay boqor la jiray ujuuraanna waa hawiye boqor hawiye hadda bilaabo maayo beela walaalahaya oo deegaanka nala degan waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay ayaguna haday suubsanayaan amba kan hadoona wada anfaco asaana wada anfici doona haday ayuna suubsanayaan waa la qaadayna insha Allah marka alxamdulillah ilaahay gaasam haddaas kale ali noo gartay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوينا نبضون علي ومحمود نبضونك وقدوميها قولها دقنك بيلاها ودقنك شلامبود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضعفه أولا ذنبنا الله ضعفه بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضعفه waxaan maleeyahay waxa dad isugu yimiday meeshaan xafladan ballaaran dadkii qaban qaabiyay iyo dadkii ka soo qayb galay muraadkooda Allah sahlo aadaan ugu mahad celiyeynaa boqorkana wadaaya laga hadalsiiyay hadal sheega xiisa ma laha la yiri hadal la sheega xiisa ma laha la yiri hadal la yiri xiisa ma laha la yiri horaa loo sheegay wixii axwaal oo la xiriira ku naqashadada waxba soo kordhimayso waxaan ka rabnaa waxaan u dooranay waa ka rabnaa haddii uu naga helay wuxuu naga dalbay oo naga helay anaguna wixii aan u dooranay waa ka rabnaa shalay haddii uu ahay shakhsi shacab oo mataqaana dadweynaha ku dhex jiro maanta waa nin mas'uula hoggaanka waxa waaye nabadda iyo ogaashada ka warqabidda gobolka Shabeellada Hoose waayo muddo ma ahan hawiye kale ma ahan dad badan ka dhawaajiyay ummadda muslimka ah oo magaaladan ku nool Shalaambood dariskeeda nawaaxigeeda waayo waxa doortay waxa laga rabaa dadaal badan anunkana waa u soo hurna mataan hawshan waa u soo deynay waxba ma ahino waa mataqaan maalin la isku leeyahay waa ku mahadsan yahay hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo insha Allah taala hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo hawshiisa hawl wali Allah ka dhigo dad kulley afayana amba mataqaana la tasho la sameeyo waa hela laakiin waxa laga rabaa inuu san gaar isu buusin oo ummadda u sinayahay dadku waa walaal waa deris waa isku diin waa mataqaana dhaqan ma ka dhaxeeyo badan waxa way hogaamiye guud hogaamiyalka hoosana ha xiriirsho
haddii ilaahay yidhaaho waxaan saasaan kugula ballamaynaa haddii alla idmo waan ku salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi aad u mahadsan yahay gudoomiyaha dhaqanka golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha ee deegaanka Shalaambood haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka golaha midnimada iyo dhaqanka beelaha ee deegaanka Shalaambood Muqtartiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين توفيق الله نوافجيو إلهي با مهد اسكالي اسوو كينا كينا حفلة دان آد إيا آد كأوبالاران صومالي وينو دمو كسو غيب قشي إلهي اسوو كينا كينا إنبادن أمهد علينا الحمد لله يان لانهاي إلهي وعور الحمد لله نمعادا مداد هورا دبر كدو الحمد لله يا ليري مداد دنبا دبر دلب كدو الحمد لله إن بدن وحنو مهد علينا إلهي أنو مهد علينا أولا مدى اللباد دادك كسو شقية حفلة دان آدك إيا آدك أقروح بدن صومالي دمان تادني سقوك كاني أو قوقوشان ديقنا ومهد علينا مهد علين تاس كدنبو وحنو مهد علينا بقركا إيا بيلها الصوماليات أو دوب كيسا كسو ودا قيب قلي بقركو إريد داس مركو كسو قلهاي وحو هاي بقر هويو هاي هول كان مركو يمنا وحاول نقدر لير بقر صوماليات بلشدة صوماليات وما هتسنتاي بقول كيف بقول وما هتسنتاي وحي الله كان نلا قادتاي وانا أمهد علينا بلشدة قاسة بقر عبد حكين والله دردار ما إنا لبك كلمة دردار ناسينا إنا شلي هدوكو سعدي إنه يهي بقر هوية ما أنت بقر صوماليات ودوبة بخسده الله الله قرب قلان لنا وعواية هوية بقر نمدي سداد كان هذا مغلايا ماينه وحي جرتي قرنيال بدن كوري جرتي بقر نمدا سنة مسيو قارين وما قشانا نمالينا وجوران نمن كالليرها بقر لا جري وجوران نوا هوية بقر هوية هذا بالله مايو بلا ولا لهايا oo deegaanka nala degan waa ku mahadsan waxaan leenahay ayaguna haday suubsanayaan amba kan hadoona wada anfaco asaana wada anfici doona haday ayuna suubsanayaan waa la qaadayna insha Allah marka alxamdulillah ilaahay gaasama hadaas kale ali noo gartay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دوينا نبضون علي ومحمود نبضونك وقدوميها قولها دقنك بيلاها ودقنك شلامبود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضافه أولا ذنبنا الله ضافه بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضافه وحان ملايها وحاد ضد السقوي مدي ماشان حفلتان بلارن ضدك قبان قابي ضدك كسوق قيب قلب مراد كور الله سهله آدان أقول مهد علينا بقركنا ودايا لقيت هذا السي هذا الشيء حيسه ما لها ليري هذا الشيء حيسه ما لها ليري هذا اللي يري حيسه ما لها ليري هرا لو شيء وحي أحواله أو لا حريرة كنا قشداد وحبا سوى كردي ميسو فعن كرمنا وحين أدورنا وكرمنا haddii uu naga helay wuxuu naga dalbay oo naga helay anaguna wixii aan u dooranno waa ka rabnaa shalay haddii uu ahay shakhsi shacab oo mataqaana dadweynaha ku dhex jiro maanta waa nin mas'uula hoggaanka waxa waaye nabadda iyo ogaashada ka warqabidda gobolka Shabeellada Hoose waaye ما هن هوية كلية ما هن ضد بدنا كهذا واجهي ومدة مسلم كهو مجال ذا كنول يشلامبود
deriskeeda nawaaxigeeda waayo waxa doortay waxa laga rabaa dadaal badan anunkana waa u soo hurna mataqaan hawshan waa u soo deynay waxba ma ahino waa mataqaan maalin la isku leeyahay waa ku mahadsan yahay hawshiisa hawl weli Allah ka dhigo insha Allah taala hawshiisa hawl weli Allah ka dhigo hawshiisa hawl weli Allah ka dhigo dad kulley afhayaana amba mataqaana la tashi oo la sameeyo waa hela laakiin waxa laga rabaa inuusan gaar isu buusin oo ummadda u sinan yahay dadku waa walaal waa deris waa isku diin waa mataqaana dhaqan ma ka dhaxeeya badan waxa way hogaamiye guud hogaamiyalka hoosana ha xiriirsho hadii ilaahay yiraaho waxaan saasan ku kula balamaynaa hadii Allah idmo waan ku salaameynaa assalaamu calaykum aad u mahadsan yahay gudoomiyaha dhaqanka golaha dhaqanka midnimada beelaha deegaanka Shalaambood haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka golaha midnimada iyo dhaqanka beelaha hawiye deegaanka Shalaambood Muqtartiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين توفيق الله نوافجيو إلهي با مهد اسكالي isugu kayna keena xafladan aad iyo aad ka u ballaaran Soomaali weyn oo ka soo qayb gashay ilaahay isugu kayna keenan in badan u mahad celiyayna alxamdulillah yaan leenahay ilaahay wuxuu yiri alxamdulillah nimcada mideeda hore dabarkeedu waa alxamdulillah yaa leeyri mideeda damba dalabkeeduna waa alxamdulillah in badan waxaan u mahad celiyayna ilaahay aan u mahad celiyayna awalan midda labaad dadkii ka soo shaqeeyay xafladan aad iyo aad ka u qurux badan Soomaali dhamaanteedna isugu keenay oo gogoshaan dhigan oo u mahad celiyayna mahad celintaas ka dambo waxaan u mahad celiyaynaa boqorka iyo beelaha Soomaaliyeed oo duubkiisa ka soo wada qayb galay boqorku iridaas markii uu ka soo galayay wuxuu ahay boqor hawiye u ahay hoolkan markuu yimidna wuxuu noqday leeyahay boqor Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay wixii loo keenay nala qaadatay waana u mahad celiyaynaa bulshada qaasatan boqor Cabdi Xakiin waa la dardaarmaynaa laba kelmo dardaaranaan siinaynaa shalay hadduu ku socday inuu yahay boqor hawiye maanta boqor Soomaaliyeed u dooba baqsadee Allah la garab galan leen waxa waaye hawiye boqornimadiisa dadkaana hadda maqlaaya maayne waxay jirtay qarniyaal badan ka hor ay jirtay boqornimadaasuna ma soo gaarin waa maqashaanan u maleynaa ujuuraan nimanka leeyahay boqor la jiray ujuuraanna waa hawiye boqor hawiye hadda bilaabo maayo beelaha walaalahaya oo deegaanka nala degan waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay ayaguna hadday suubsanayaan amba kan hadoona wada anfaco asaana wada anfici doona hadday ayuna suubsanayaan waa la qaadaynaa insha Allah marka alxamdulillah ilaahay gaasama haddaas kale ali noo gartay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhaweyna nabadoon cali oo maxmuud nabadoonka waa gudoomiyaha golaha dhaqanka beelaha hawiye ee deegaanka Shalaambood بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضافه أولا ذنبنا الله ضافه بسم الله الرحمن الرحيم أول ذنبنا الله ضافه waxaan maleeyahay waxa dad isugu yimiday meeshaan xafladan ballaaran dadkii qaban qaabiyay iyo dadkii ka soo qayb galaba muraadkooda Allah sahlo aadaan ugu mahad celiyaynaa boqorkana wadaaya laga hadal siiyay hadal sheega xiisa ma laha la yiri hadal la sheega xiisa ma laha la yiri hadal la yiri xiisa ma laha la yiri horaa loo sheegay wixii axwaalo oo la xiriira
ku naqashadeeda waxba soo kordhi mayso waxaan ka rabnaa waxaan u dooranay waa ka rabnaa haddii uu naga helay wuxuu naga dalbay oo naga helay annaguna waxaan u dooranay waa ka rabnaa shalay haddii uu ahay shakhsi shacab oo mataqaanaa dadweynaha ku dhex jiro maanta waa nin mas'uula hoggaanka waxa waaye nabadda iyo ogaashada ka warqabidda gobolka shabeellada hoose waaye ma ahan hawiye kaliya ma ahan dad badanaa ka dhawaajiyey ummadda muslimka ah oo magaaladan ku nool iyo shalaambood iyo deriskeeda nawaaxigeeda waaye waxa doortay waxaa laga rabaa dadaal badan anunkana waa u soo hurna mataqaan hawshayn waa u soo daynay waxba ma ahino waa mataqaan maalin la isku leeyahay waa ku mahadsan yahay hawshiisa hawl weli allah ka dhigo insha Allah taala hawshiisa hawl weli allah ka dhigo hawshiisa hawl weli allah ka dhigo dad kulley afhayaana amba mataqaana la tashi oo la sameeyo waa hela laakiin waxa laga rabaa inuusan gaar isu buusin oo ummadda u sinan yahay dadku waa walaal waa deris waa isku diin waa mataqaana dhaqan ma ka dhaxeeya badan waxa way hogaamiye guud hogaamiyalka hoosana ha xiriirsho hadii ilaahay yiraaho waxaan saasan ku kula balamaynaa hadii Allah idmo waan ku salaameynaa assalaamu calaykum aad u mahadsan yahay gudoomiyaha dhaqanka golaha dhaqanka midnimada beelaha deegaanka Shalaambood haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka golaha midnimada iyo dhaqanka beelaha deegaanka Shalaambood Muqtartiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين توفيق الله نوافجيو إلهي با مهد اسكالي isugu kayna keena xafladan aad iyo aad ka u balaaran Soomaali weyn oo ka soo qayb gashay ilaahay isugu kayna keenan in badan u mahad celiyayna alxamdulillah yaan leenahay ilaahay wuxuu yiri alxamdulillah nimcada mideeda hore dabarkeedu waa alxamdulillah yaa leeyri mideeda damba dalabkeedu waa alxamdulillah in badan waxaan u mahad celiyaynaa ilaahay aan u mahad celinaynaa awalan midda labaad dadkii ka soo shaqeeyay xafladan aad iyo aad ka u qurux badan Soomaali dhamaanteedna isugu keenay oo gogoshaan dhigan oo u mahad celiyaynaa mahad celintaas ka dambo waxaan u mahad celiyaynaa boqorka iyo beelaha Soomaaliyeed oo duubkiisa ka soo wada qayb galay boqorku iridaas markuu ka soo galayay wuxuu ahay boqor hawiye u ahay هولكان مركو يمنا وحو نقدال لير بقر Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waa mahadsantahay boqolkiiba boqol waa mahadsantahay wixii loo keenay nala qaadatay waana u mahad celiyaynaa bulshada qaasatan boqor Abdi Hakiin waa la dardaarmaynaa laba kelmo dardaaranaan siinayna shalay haduu ku socday inuu yahay boqor hawiye maanta boqor Soomaaliyeed u dooba baqsade Allah la garab galan leen waxa waaye hawiye boqornimadiisa dadkaana hadda maqlaaya maayne waxay jirtay qarniyaal badan ka horay jirtay boqornimadaasuna nama soo gaarin waa maqashaanan u maleynaa ujuuraan nimanka leeyahay boqor la jiray ujuuraanna waa hawiye boqor hawiye hadda bilaabo maayo beela walaalahaya oo deegaanka nala degan waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay ayaguna haday suubsanayaan amba kan hadoona wada anfaco asaana wada anfici doona haday ayuna suubsanayaan waa la qaadaynaa insha Allah marka alxamdulillah ilaahay gaasama hadaas kale alli noo gartay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh